وأن فريستي وحان سويدي هدان إذن هوري مادو وامحي وحيابان إذن شيكا وامحي محاين ديكرا مركان آدو فكري وحا إيقوه الرأي أن ربنا إذن إرادو أو إذن مريو لأن يرى الصومالية أنا أقول هدلايا دمان dadka Soomaaliyeed muwaadiniinta Soomaaliyeed oo konton jir iyo wixii ka weyn ah magaco aan ku hadlayo inaan idin iraado dhalinyarada Soomaaliyeed naga raalli ahaan waayo wixii annaka jiilkii annaka naga horeeyay facin naga horeeyay waxa ay noo dhiibeen aan ku soo barbaarnay idin ma hayno maanta idin ma dhiibi karno naga raalli ahaada haddaan idin dhaxal siinay dal oo weli ishaystay isdilaya ama aan weli nabadii iyo amnigii weli ka jirin dhexdiisii haddii ay jiraan naga raalli ahaada haddii wixii aad tiranayseen ama noloshii wanaagsaneed aad rabteen inaad dhisataan hadday idinka carqaladaysan tahay oo taa idinkaga tegayo naga raalli ahaada waayo waxaan rabaa in yar wax hadda cusub idinma sheegayo maanta oo dhan saa u doodayseen iyo warbixinada aan dhegaysanayay waxay aad u tilmaamaysaa in basay dhalinyaro uu soo ifbaxayo oo aad noo dhiirigelinayso hase yeeshee waxaa la yidhaahdaa qofka meeshii uu ka yimid aan garanaynin meel uu socdana ma yaqaan in yar aan idinkaga hadlo 3 qaybood oo noloshayda ka mid ah si ay daaqad idinku furanto meesha aad u socotaan ay u caddaato anigu waxaan dhashay 5 sano ka bacdi markii dagaalkii labaad uu dhammaaday waxaan ku soo barbaaray Soomaaliya ama marka aan ku dhashay aan ku soo koray waxay ahayd Soomaaliya oo aan lahayn ururo aan lahayn calanka Soomaaliya buluuga aad arkaysaa markaa ma jirin weli Soomaaliya oo martaa doonayso gobonnimo inay ka baxdo waxaa dhashay markii aan dhalinyaro ka hadlayno maskaxdeena markiiba waxay aadaa 13 dhalinyaro oo kulmay oo Somali Youth League la baxay Somali Youth Club Somali Youth League la soo baxay ay maskaxdeena aadaa caruur yar anako abayno oran jireen madaxda berita tahay waxa yeela waxaan hayeelina saa yeela waana kicinayeen intaa waxay nagu abuurayeen Soomaalinimo ka soo gudub xorriyadii baan ku qaadanay isla ayagii falsafadii ay nagu abuurayeen wacyigii iyo wacyigelinteena siinayeen ku soo gaarnay ilaa 69kii يعني marka ururo waa jireen ururo madax banaan ururo dhalinyaro ururada macallimiinta ururada oo shaqaalaha isgaarsiinta ururada caafimaadka ururadaas badan ay jiray oo xukuumadda talaabada ay qaadaysaba annaka digteed gareyn jirnay annaka u yeerin jirnay hadday leexatana waan ku kici jirnay taasal ila dimuqraadiyada ururada loo sameeyay looma sameeyay aniga golay kaas noqonay reerkii hiblay ku faa'iideysana waxa loo sameeyay waxa weeyaan difaaciiso arrimaha aad aaminsantahay aqliyan ummadaas ay ku hormarayso ayaa loo sameeyaa mooyaane reer hiblow iyo futabicid kale looma sameeyo waxa marka muddo aan ku soo soconnay dhalinyaronimadii markii aan ku jirnay kontonaadkii ilaa 60naadkii laga soo gaarayay ma ahayn urur dhalinyaro oo sugaya in mucaawano ay xukuumadda ka helaan ama mucaawano urur oo marta NGO ayaamahan la baxay ay ka sugaan ama United Nations ay ka sugaan ma ahayn waa u baahneen lacag inaan ku wadno afkaarta aan wadano iyo waa xorriyad aan gaarin aan rabno waxaan xusuustaa maalin ilaa hadda aan xusuustaa waxaa samayn jirnay si aan fundraising arinta yani lacag inaan urursano oo aan buugaag uga soo gadno dadka marta wax ugu qorno waxbarashada meelaha aan ku samaynayno lacag la'aan baan ugu dhacday mar waa isu nimid waa fakirnay xageen lacagta ka keenaa yani shilin Soomaali ma hayno maxaan haynaa xageen ka keenaa waxaanu samaynay riwaayadii aan samaynay marka gabdho waan ugu jireen laakiin habeen waxaan xusuustaa gabadhii ugu jirtay riwaayad inay soo baaqatay aniga diraca la geliyay adiga xoogaa dhoodhoobanaya diraca li garma lahayn markaas ma si habeenkaas u galno markii hore markaan bilaabaynay 3,000 lagu galay markii dambe la jeclayso nus shilin baan geynay ilaa bugaagtan basic way la dhahay af Ingiriisiga aan dadku ku barin aan ku soo gadno soo ururino walaalayaalo waad samayn kartaan adigoon cidna baryin baad ururkaaga dhisan kartaa siyaasadda samayn kartaa horu socon kartaa xukuumadda aad martaa xakamayn kartaa baarlamaanka aad keeni kartaa war adaa iskale dalkan waad jiiftaa ka